because there is none, there are none. That is untrue. I do not agree what you said. I want referring to your Minister Jean-Yves Le Drian, he is a French official. I'm referring to Minister Le Drian, he is not a journalist. We can no longer continue to make policy for ourselves, in our country, in our region, in our continent, on the basis of whatever support the Western world or France or the European Union can give us. It will not work. It has not worked and it will not work. Mudane Madaxweeyne Waa Beentaa waa luuqadii ugu adag ee laba madaxweyne ay ku wada hadlaan Saxaafada Caalamka Horteeda. Dalka Frensiiska oo caadeeystay islamarkaana qabatimay jiqida dhiigga Afrikaanka ayaa aan fariira markasta oo xaqiiqada farta laga saaro. Faransiiska ayaa ah dalka kaliya ee gumeysiga Africa Kahela dakhli lacageed oo si toos ah ugu dhaca bangiyada Faransiiska. Lacagahan ayaa Faransiisku heshiis kula galay dalalka uu gumeysanayay inay magdhow ahaan u siiyaan Faransiiska xilligii ay madaxbannaanida ka qaadanayeen maadaama uu sheegtay inuu horumar ka sameeyay. madaxweynaha Faransiisku waad u jeedaa farataagtaag baashii farataagtaag iyo waxay gaartay xataa mar baaba la yiraahdeen madaxweynaha waddanka Congo almuba ninka darbaaxaya. No, that's the position of France because there is none, there are none. That is untrue. I do not agree what you said. I'm referring to Minister Le Drian, he is not a journalist. almayba gacan soo tagaan baalay xaalad heerkaasay gaartay waxay xataa gaartay inay shirki jiraacid ay u qabsoomi waayo muran labadooda dhex maray aawado wuxuu yiri wadamadiinaan wax soo gumaystay waa inaad mid barataan inaad maar si adaab la noola hadashaan waa inaad barataan inaad maqaymaysaan waa inaad noola hadlin sidii ilmo yarood maarta soo korsateen oo kale laakiin si dad siman I think there needs to be respect and consideration between us. waxa muuqata Faransiisku marnaba inaanu ka waantoobaynin inuu faraha kala baxa Afrikaanka. haddaba shir jaraa'id uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Immanuel Macron madaxweynaha DRC Congo Flix ayaa waxa uu kala kulmay filan waa kadib markii uu madaxweynaha DRC Congo ku yiri mudane madaxweyne Faransiisow Mr. Macron waxaad sheegayso dhan waa beenta. Afrikada maanta maaha midii shalay oo annaga nooma go'aamin kartaan waxa inaga noo fiican. Madaxweynaha DRC Congo ayaa sidoo kale yiri reer galbeedku markasta waxay ula dhaqmaan Afrika sida ilma aan qaangaadh ahayn. Aragtida waxaad u baahantiin inaad iska ilowdaan Afrikada maanta ma yasi kartaan oo waa mid adinka idinla baratamaysa. cajiib. It will not work. It has not worked and it will not work. It is not right for a country like Ghana, 60 years after independence, to still have its health and education budgets being financed on the basis of the generosity and charity of European taxpayers. Our perspective has not to be what the French taxpayer decides to do with whatever surpluses that they have in France. Young men who are showing so much resilience in crossing the Sahara, finding ways to go across with rickety boats across the Mediterranean to really, those energies, we want to have those energies working inside our countries. Italian young people are in Italy. Irish young people are in Ireland. We want young Africans to stay in Africa. We have to get away from this mindset of dependence. What can France do for us? France will do whatever it needs to do for its own sake. And when those coincide with ours, tant mieux, as the French people say. To move Africa away from being cap in hand and begging for aid, for charity, for handouts,